Bismillahi Raxmaani Raxiim. Walaal kusoo dhawaada chapterkeennii saddexaad waynu ku baran doono set up a shop sidii dukaan aynu u samayn lahayn ama meheradii aynu ku samayn lahayn. Markaa chapterkan waxaynu ku baran doonaa sida loo sameeyo number 1 wuxuu noqon doonaa sida loo sameeyo ama loo edit gareeyo accounts-ka maxaa tahay account-ku waa kuwan chart of account waxaad ka tagi kartaa waxaa kaloo ka tagi kartaa muxuu ahaa list baad ka tagi kartaa list baad chart of account ka u sareeya meesha ka tagi kartaa double click baad siinaysaa marka chart of account window wan soo furi marka window waad soo yar weynaysan markaad soo yar weynaysato waxaad tahay muxuu ahaa meel bannaan baad right click siin saaraam xaggan hoose account ka share soo furi waxaad tagaysaa new baad oran new account ka noociisa baad dooran markaa ma income ba account lacag aad dhigayso lacag ku isticmaalaysaa mega expense markay kharashaadka ka baxay lacagtiisa laga jirayba waxaasoo dhan baad dooran doontaa marka income account baan dooranaa markaan doorano waxaad oranaysaa continue markaad tidhaahdo waxaad gelin doontaa information account namekii dahabshiil oo kale ka dhiganaa tusaale ahaan account-ka dahabshiil baynu ayuu muxuu ahaa waa account dahabshiila deedna markaynu account-kaa samayno save and continue intana waa iska optional waxba uga baahnid sub account-ka waxba uga baahnid description waxba uga baahnid waxaan waxba uga baahnid deedna waxaad oranaysaa save and close sida halkaa nooga muuqata marka accountskii dahabshiila noo soo galay markaa sidaas loo sameeya account-ka number 1 number 2 sidee loo edit garayaa markaa account-kii baad soo geli markaad doonayso inaad edit garayso deedna chart of account-ka click siini deedna markaad dahabshiil xaggan inoo yaalaa right click baad siin deedna waxaad oran edit account markaa waxaad ka bedelaysaa dad magaciisa bedelayso dad description kusoo darayso wixii aad doonaysay deedna save and close baad oranaysaa marka wixii aad doonaysa ku daraysaa save and close baad oranaysaa haddaad delete siinayso walaalayaal deletekiisuna waxa weeye isagu waa simple deedna waad tagi waa dulman right click deedna delete account deedna delete account deedna okay baad oran saasuu marka walaalayaal delete ku baxayaa account-kii saasuu muxuu ahaa aad ku delete garaysay stepkeena xiga waxa weeye allahumma salli alaa maxamed add items then alaabihii ugu soo diri lahayn haddaba waa kuwan mainkeenii chapterku uu socday itemskii aynu iibinaynay ilaa waxaa la doonayaa in itemkii ay ku jiraan xaggan si qofkii looga iibiyo receiptkii looga daabaco alaabtii loola socdo oo markaa alaabtii markaynu doonayno number 1 inaynu soo gelino waa inventory alaabtii deedna waxaynu tegaynaa marka hoose inventoryga hore waxaad tegaysaa markaas cafwan items and services kana tegaysaa items and services saad arkayso way noo maran yahay right click baad siinaysaa new baad oranaysaa markaa new markaad tidhaahdo halkaas sare inventory la yidhaha nooguma jiraan sidaad arkaysaan idin wada muuqata marka alaabteen inventory inay noqoto doonaynaa waxaynu tegi doonaa editka preference-ka tegi doonaa preference-ka markaan tagno waxaan ka daalin doonaa item and inventory oo kaa item and inventory markaad tidhaahdo company preference-ka sii tegi doontaa deedna xaggaasaad tigta saari doontaa markaad saarto okay baad oran deedna wuxuu odhanayaa markaa windowskii oo dhan buu dib wada xidhaya daaqadihii noo furnaa ee muxuu ahaa quickbook okay baad siini deedna markaad dib isku refresher buu qaadanay markuu saasoo kale marka qaar saasoo kale kaa noqdo waxaad tegi doontaa home-kanaad ku dhufan doontaa wuu ku soo celinayaa deedna markaasi aynu u gelino itemskii aynu iibinaynay waxaan tegaynaa number 1 item list markaan tagno waad soo weynay windowgan waxbay nooma yaalaan halkan baad tegi kartaa itemkan hagan ishaar baad soo furi deedna halkaasaad new odhan ama option kale aad haysataa sidaan hore soo aragno new right click intaad tidhaahdo ayaad new odhan labadaba waa isla halka isku meel buu keenay saad imika halkaan noogu aragto waxay noogu soo biiray inventory part-kii waxay noogu soo biiray inventory part-kaad dooran inventory part markaad doorato
item nameka u horeeya waxaa koowaad diiwaangelinayso item nameka shaygan haddaan magac lahayn dee maba iibin karno deedna markaa item namekii baad u samaynaysaa item nameka tusaalaan maadaama uu muxuu ahaa maanta inoo yahay muxuu ahaa companygeenu electronics waxaynu samayn doonaa mobiles baynu gelin doonaa deedna tusaale ahaan iphone baynu gelin doonaa iphone 13 pro max intaan waxaad geliso xaggaas waa magaciisii xaggan waxaad gelin doontaa muxuu ahaa madaxiisu intuu leeyahay tusaale ahaan roomkiisu intuu yahay 256 128 512 muxuu ahaa 1 terabyte waxsaabahaasoo kale ad gelin doontaa markaa waxaan gelinaynaa iyo kalarkiisa 256 grey intaasaynu gelin doonaa halkan hoose waxaad dhici doontaa markaa hoose markaad timaado koskee qiimihii uu adiga kugu taagnaa markaad companiga kasoo qaadanaysay ayaad halkaa gelinaysaa tusaale ahaan companiga wuxuu kaa soo siiyeyba $850 buu kaa soo siiyey $850 markuu kaa soo siiyey adiguna imisaad siinaysaa adiguna imisaad siinaysaa 1200 baynu odhanaynaa halkaas aad u kala fahma kosku waa qiimaha adiga kugu taagan yahay ilaan meel baad kasoo iibsatay marka hore shay aad ugu samaysay maaha kana waa faa'iidadii markaad saartay intii aad ku iibinaysay deedna halkan hoose cost of goods sold kaas sidaad ku daynaysaa kan waxa uga baahnid vendorka aad kasoo iibsatay muhiim maaha income accountkii markan aad iibiso alaabta waxaan dhaga lacagtan kusoo gashay waa maxay waa noocee deedna sheer baad soo jiidi sales ila iib baad samaysay soo maahan oo iibkii kugu kaydiya lacagihii weeyaan markaas saleskaa dooran markaad sales doorato halkan hoose markaad timaado inventory asset bii noo yahay kan waxa weeyaan markuu intee gaadho 5 mil markay noo yartay inuu xasuusiyo programka inaynu muxuu dalbano oo kale ka dhigani waa iska optional maximum inta ugu badan haysana soo waxaad doontaa soo iibsan kartaa 100 mil 1 mil uma baahnid tanaa muhiima laakiin on hand imisaad keentay kambanigii imisaad kusoo dartay on handkii imisaad gacanta ku haysaa deedna waxaad tiradii aad soo iibsatad gelinaysaa markaa haddaan halkaa gelinin muxuu ahaa waxyaaba badan baa khaldamaya on handkii waana tiradii gelisa waayo ilan tirad kusoo iibsatay soo maa waa soo iibsatay tusaale ahaan 50 xabo oo kale halkaa total value-ga eeg waxa dhaca haddaba total value-ga isagaa muxuu calculate garaynaya qiimaha aynu doonayno markaynu iibino 50 kaa mobil ee $200 noo taagan $42,500 oo qiimo ah ayuu noogu fadhiyaa deedna markaa intaa dhammayso waxba ku dhinayn okay baad siinaysaa okay markaad siiso waxay noo yaalla muxuu ahaa intaa 50 xabo xabadiina maxay noogu taagan tahay 1,200 bay noogu taagantahay markaa waxaa jira option labaad oo aad muxuu ahaa aad ugu soo diri karto muxuu ahaa items fara badan marka one baynu ugu soo daraynaa items aad ugu soo diri karto right click intaad tidhaahdo add or edit multiple item baad oranaysaa marka add or edit multiple item baad click siinaysaa items fara badan buu hal mar ku sheegi inaad buuxiso wuxuu ku soo dhigayaa marka item namekii sub item of itemkaas muxuu hoos tagaa alaabteebuu hoos tagaa qiimahaad ku iibinaysay accountkii income-ka ahaa waxyaabaha markaa waxaad samaynaysaa xagganaad horta marka hore soo dooranaysaa surface item bay noo taagantay adeegina qabano waad soo dooranaysaa waxaad ka dhigaysaa markaa inventory part baad ka dhigaysaa inventory part marka dhigto waxa isbedelaya tablekeeni baa isbedelaya waxay noo soo gelaya alaabteen hore u haysanay ee soo diiwaan gelinay deedna markaa maxaa ka mid ah muxuu ahaa alaabta yaroo tips weeyaan oo iska xidhanaa item name baa u horeeya sub itemkii waad edit garayn kartaa marka customize aynu tegaynaa waxyaabaha aan muhiimka ahayn ee kolomyada inaynu buuxino aanayna daruuriga inoo ahayn oo dhan baynu iska saaraynaa deedna customize kalan baynu odhanaynaa xaggan waxaa ku yaala kolomyada available-ka ee aan xaggan inoogu jirin kuwana kuwa inoogu jiraan muxuu ahaa liiska marka waxyaaba badan baynu iska saaraynaa waad kali garanaysaa marka sub itemkaas oo kale uma baahnin oo muxuu ahaa alaab hoos tegaysa oo kale ma iibinayno sub itemkaas muxuu ahaa click siinaysaa remove badanaysaa waad ka saaraysaa coskii waynu u baahan nahay qiimihii inaynu gelino saleska qiimahaynu ku iibinayna waynu u baahan nahay kan oo kale cost of
kaasoo kale wuu isaga jirayaa. Preferred vendor meeshaan kasoo iibsanay iyo company kasoo iibsanay wax ugama baahnin, waqti unbuu naga luminaya diiwaangelintiisu, waan iska remove garaynaynaa. Income account waan daynaynaa. Asset account waan iska daynaynaa isagana. Kanna waa optional. Reorder point intee baad ku dalbanaysaa markaa markuu 5 mil ku harsan yahay waa inuu muxuu ahaa programka ku xasuusiyo, waa iska optional, waan iska daysan karnaa. Maximum inta ugu badan aynu haysan karno waxba noogama baahnin, waan iska remove garaynaynaa. Total value on hand isagu wuu fiican yahay, waan daysanaynaa. Manufactured parts number waan daysanaynaa. Quantity on hand intaynu muxuu ahaa soo qaadan waan daysanaynaa. Marka intanaynu habayni si column-yada inoogu soo kala horeeyaan sidoo kale muhiimsan yihiin. Item name-ka uu fiican yahay, cost wuu fiican yahay, sales price wuu fiican yahay. Kanoo kale isaga maadaama inaan waxba ka bedelaynin down cost baan isaga dejinaynaa. Move down baad oranaysaa, xagga u dambaysa iska geynaynaa. Quantity on hand intayn soo iibsanay waxaan kusoo xigsiinaynaa muxuu ahaa sales price-ka. Income account wuu inoo daayay. Asset reorder payment iska daysan. Total value qiimaha isagana waxba kama bedelayno. Deedna markaan saa u customization ugu samayno okay baan odhanaynaa. Okay markaad tidhaahdo saasuu eegaanayaa markaa muxuu ahaa meeshaan buuxinaynay. Kan hore maynaan soo gelin intaan ku dalbanno, waa iska optional. dalabkeenu inuu na xasuusiyo waad ku darsan kartaa, waad ka dayn kartaa. waayahay mobilkana soo gelin doonaa. waxaan gelinaa tusaale ahaan Samsung S21 Ultra F15G saas odhanaynaa. Koska calaa xabo muxuu inoogu taagan yahay, calaa xabo wuxuu inoogu taagan yahay calaa xabo muxuu ahaa 550 baa inagana laga soo siiyey. inagu maxay siinaynaa saalaha 800. Quantity on hand soo iibsanay isaga 60 bay nooga dhig. Saleska waa income account-ka, markaas saleska isaga mar walba dooranayna. waayahay kan inventory asset binoo yahay, waa alaaba inventory noo taala. Reorder point minute-ka isaga waa dad doonto optional, hadda doonto wax iska gashan kartaa 5 minute. Markaa qiimihiisa 6 noogu taagan yahay. kan manufactured parts number-ka isaga inuu soo horeysiinay noqonaysaa inuu geysano xagga name-ka agtiisa. maadaama aynu gelino waxa weeye 128 weeyaan magaciisu. waa black markaa saad gelinaysaa marka. deedna intaad geliso haddana waxaad option u haysataa inaad soo degto aad mobilka aad kala diiwaan gashato. wax kale dee mobile maaha electronicskii kala diibinaysa adeegyadii kale. kuwan waa example. wixii kale aad ku daraysay baad ku wadaysaa marka. intaasoo dhan wuu soconayaa. adeegyo fara badan baad hal mar wada diiwaan gelinaysaa. bal aynu ku eegna mid kale. Huawei baynu ku eeganaa. Huawei P50 Pro baynu ku eeganaa. wuxuu inoogu taagan yahay 600. waxaan siinaynaa 900. imise mid baynu soo iibsanay, tusaale ahaan 45 mid. waay saleska account-ka markaan iibino lacagtu gelaysaa waatay income-ka. xaggan aad u durkaysaa. markaasaan u durkaysaa 27 isagu nagu taagan yahay. aad oranaysaa markaa waxa weeyaan waa 512 madaxiisu. waxa weeyaan muxuu ahaa waa white. saasaad oranaysaa markaa informationka. deedna markaad buuxiso intii aad u baahnayd alaabee ku timid aad diiwaan geliso waad samaynaysaa muxuu ahaa save changes baad oranaysaa. to inventory waxaan ku diiday kaas. ka hore inoogu sii jiray labadaas inoogu daray. deedna close baad orani. waxaad soo eegi markaa muxuu ahaa waa kuwan saddexdaas ayaa listkii inoogu jira. saddexdaa item baynu iibinaynaa. muxuu ahaa dadkeena kale wuxuu inoo noqonayaa allahumma salli ala Muhammad. wuxuu inoo noqonayaa markaad doonaysid inaad wax ka bedesho muxuu ahaa alaabtii oo kale, tusaale ahaan alaabtii oo kale muxuu ahaa waad ka bedelaysaa, waxbaa khaldamayba. markaad alaabtii oo kale saan u timiday informationkaad gelisay wax khaldan yihiin ama tiradii oo kale, inkastoo tirada meel kale hadhow aynu arki doono. waxyaabaha muxuu ahaa markaa isbedelay. deedna markaa double click baad siinaysaa kaad u baahnayd. deedna waa kan ku keenaya marka. halkaasaad ku aragtaan quantity on hand-kii kama bedeli karna xagga waxba. isaga waan ku tusi doonaa meesha laga bedelayo. laakiin hadda
waxyaabii kale magaciisa hadday wax ka khaldameen, haddii uu 128 kaas maxaa manufacturer baa markiisa wax ka badameen, qiimihii laga soo hadday wax ka khaldameen, qiimaha saddex ka khaldan yihiin, waxyaabahaas oo dhan edit baad dib u siin kartaa. deedna okay baad oranaysaa markaad wixii ka bedesho, maadaama aynaan waxba inoo ka bedelaynin. haddii tusaale ahaan muxuu ahaa laba item oo tusaale ahaan aad isku darayso laba item oo marka hore ku kala duwanaa, waxaad samaynaysaa oo keliya waxa weeye magacooda unbaad exactly same ka dhigaysaa, magacooda inuu isku kaa egaado. haddaad doonaysa inaanad muxuu alaabtan aad iska qarisaba, tusaale ahaan inaanad alaab istaagtay oo suuqii ka baxday oo laakiin kuu taalla adigo iyadoo ay timisa halkana kugu jirta, waxaad samaynaysaa aanu doonin inay halkaa mar walba kaa soo dhex gasho xaggan. deedna waxaad samaynaysaa right click baad siinaysaa, deedna waxaad odhanaysaa muxuu ahaa allahumma salli ala maxamed. deedna allahumma salli ala waxaad odhanaysaa afwan, double click baad odhanaysaa, deedna waxaad odhanaysaa muxuu ahaa afwan bismillahi raxmaan marka doonaysa marka inactive marka doonaysa inaanu kaaga soo muuqanin windowskan, deedna halkana tegi laba option baad haystaa marka option halkana intaad iyada select garaysto aad item kan tagto, deedna aad ka dhigto make inactive, deedna make inactive, deedna liiska uu kaaga baxo. deedna haddana hor markaad active ka dhigayso iyadin baad tegi muxuu ahaa show inactive items baad odhan, deedna halkaa kugu soo celiyey, halkaasaad markaa waad click baad siini markaad samayso. muxuu ahaa tusaale ahaan marka tanoo kale Samsung oo kale inactive ka dhigaynaa, make inactive item inactive, deedna make inactive marka tiri hadhow markaad doonaysa inaad kusoo ceshato waxaad tegaysaa item show inactive items baad odhan, deedna halkaa close-ka unbaad click siinaysaa halkaa kugu soo celiyey. taasina waa sidaa. allahumma salli ala maxamed. setupkii chapterka waynu dhamaynay, kambanigaasaasan ku samaynay ama dukaankaasaasan ku samaynay. unitskeena xigaa wuxuu noqonayaa allahumma salli ala maxamed, chapterkeena xigaa sidii muxuu ahaa aynu day to day activity u samayn lahayn, alaab u iibin lahayn, alaab u bedeli lahayn, alaab soo iibsan lahayn anagu, waxyaabahaasuu noqonayaa. marka waxaan u malaynaa inaad fahanteen. meel idinku adkaadana waxaan idinka rajeynayaa inaad commentiga igu sheegi doontaan. chapterkani aad buu inoogu dheeraaday, kuwa dambe waxaan rajeynayaa inay muxuu ahaa gaagaaban doonaan insha allah. aad baad mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.